baarlamaanka Finland ayaa la soo gabagabeeyay iyada oo 8 xisbi ay ku tartamayeen kuraasta aqalka wakiilada oo ka kooban 200 oo kursi. Xisbiga Central Party-ga ayaa helay 49 kursi noqdayna kuraasta badnaa. Xisbiga cunsuriyiinta ee Pro-Somaliland-ka ayaa isna noqday kii labaad oo helay 38 kursi. Xagga SDP iyo Kokomus ay heleen 34 iyo 37 kursi midkiiba. dawladdii hore waxay ahayd mid ku midoobeen 6 xisbi. tan soo socotana waxa la filayaa in xisbiyada qaar ay ku midoobaan. xisbiga cunsuriyiinta oo codadka ku helay campaign-ka uu diiradda ku saaray dadka ajaanibta ah ayaa la filayaa inuu dawladda ka mid noqdo. dhanka Soomaalida waxaa tartamayay 3 musharax oo aan ku guuleysan loona sababeeyay khilaafka Soomaalida dhankeeda ka yimid. xisbiga Central Party-ga ee dawladda cusub soo dhisi doona ayaa walaal go'aan ku gaarin cidda la wadaagi doonta dawladda cusub. Aadan Yusuf Ismaan, Home Cable TV, Finland.